timaha bixitaanka ay bilaabaan hubaal weligood ma joojinayaan haddaa nafaqadan aa isticmaashid. waa nafaqo yaroo fudud oo timaha nafaqeynayso, timaha bixinayso, timaha badinayso, timaha jilcinayso, timaha halweynka dhigayso, timahana israacinayso, timaha googa ragaaska qaleylka adeyga waxaasoo dhan way ka dhamaynaysaa. timahana madow jileec furfur qurux badan ayay ka dhigaysaa maasha Allah. hadda waa nafaqo dhan walba ka dheelatiran insha Allah. igala bogta hadda videoga soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajinayno iyo sidaan u samaysanayno. waana ku mahadsantiin walaalahayga mar walba sida quruxda badan aa ila socotiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta ku xiran najax qurxinta soo dhawaada walaalahayga meel walba joogtiin dhammaantiin kusoo dhawaada channelkani najax qurxinta uga barateen waxyaalaha dabiiciga oo la isku qurxiyo. walaashin hadii si cashar kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wadaa. saa title video kusoo aragteen qaybta ugu horeysa video kusoo daawateen wixii wara wixii hadal ah qaybta ugu horeysa videoga ayaan kusoo koobay walaalahayga. marka hadda hadalkii warkani kuma badinaayeen nafaqadan dheelitiranka oo timaha nafaqeynayso timaha bixinayso ayaan hadda maanta insha Allah kasoo tuuranaynaa. marka igala bogto videoga soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajinayno iyo sidaan u samaysanayno. haddii hadda muuqaalka daawatina like-ta anaga ilaawin insha Allah. bismillaah. nafaqadii fududeed oo dhaqsida timaha nafaqeynaysa timaha bixinaysa ayaan hadda hagaajinaynaa oo samaysanaynaa. marka koowaad waxaad u baahan tahay waxa weelka yarka waxa inoogu jiro waxa waaye waa baamiyo waaye. baamiyo aan soo jarjaray oo dhowr xaba ayaad marka koowaad u baahan tahay insha Allah. baamiyaha anigu iska qiyaastay adigana iska qiyaaso. marka baamiyaha marka koowaad u baahan tahay intaas in ay la fahanteen ayaa rajeynaya. baamiyihii ayaan waxaan ku shubanaynaa hadda digsigan yarka ayaan ku gadisanaynaa si aan baamiyaha inaba caadi ma ahan. timaha wuu bixiyaa maasha Allah. timaha nafaqo siiyaa timahana madow jileec furfur qurux ayuu ka dhigaa. sidoo kale waxaan kaloo aan ku daray biyo waaye. weelka yarka oo labadiisa oo biyo ayaan ku daray walaalahayga. baamiyihii iyo biyihii hadda maasha Allah markaan isku soo darsanay xagga iyo dabka ayaan aadaynaa oo baamiyaha iyo biyaha waan isku karkarinayaa walaalahayga. inuu baamiyaha inoo bislaado ayaan rabnaa insha Allah. dabkii ayaan soo saaray waan ku daaray baamiyaha iyo biyaha hadda waan isku karinayaa. baamiyaha markuu noo bislaado ayaan hadda isku soo noqonaynaa. dabkana alaabtaan zaa'id ha uga dhigin, dab yaroo iska normal oo dhexdhexaad ah ku kar insha Allah. hadda waa u jeediin alaabta si isku daba marayso oo soo karkartay maasha Allah. inaba caadi maahan 7 daqiiqo kaliya ayayna inoogu bislaatay. baamiyihii hadda si fiican ayuu inoogu soo bislaaday. biyihii faraha badnaa sida u wada jeediin hadda uu soo dhamaystay oo biyo yar ayaa inoogu soo haray. marka haatan dabka waan ka daminayaa walaalahayga. biyaha inta inoogu hartana waad arkaysiin insha Allah. waa u jeediin hadda dabkii markii aan ka damiyay biyaha intaas oo kaliya ayaa inoogu soo hartay. marka baamiyaha intuu inoo qaboobayo ayaan hadda sugaynaa. markuu inoo qaboobo ayaan isku soo noqonaynaa. baamiyihii inoo karsanaa uu inoo soo qaboobay maasha Allah. waa u jeediin hadda haatan waxaan kaloo ku darsanaynaa alaab kaloo yar oo fudud ayaan ku darsanaynaa. waxaan ku darsanaynaa wax weelka yarka waxa inoogu jiro waa hal xabo basil guduuda oo aan soo jarjaray ayaan ku darsanay baamiyaheeni inoo karsanaa oo digsiga inoogu jiray. marka intaan ayaan hadda isku soo shiidaya insha Allah. markii aan isku soo shiido ayaan isku soo noqonaynaa. waxbana kuma daraayo waa intaan oo weelka inoogu jirto oo kaliya waa baamiyihii inoo karsanaa iyo basashii aan ku daray intaas oo kaliya ayaan hadda isku soo shiidaya. wax biyana kuma daraayay. waan soo shiiday maasha Allah. weelka yaraa ayaan hadda aan ku shubanaynaa sida wada jeediin maasha Allah. baamiyihii basashii sidaas ismuudka ayay hadda inoogu soo baxday. markii aan isku soo shiiday lagama sheekeyn kara hadda wax taagtaaga ma lahan wax qashina ma lahan. miiritaan uma baahna alaabtan. hadda adiga xoogaa shakinay sidoo kale waa iska miiran kartaa laakiin wax miiritaan uma baahno waayo wixii oo dhan waa isku tirmeen. waxaan kaloo aan ku darsanaynaa ukun ayaan ku darayaa. waliba ukunta qaybteeda jaalaha waa hal xabo ukun ayaan ku daray. shahrigii waaye xabkii ma ahan waa ukunta shahrigeeda waliba qaybta jaalaha ah. ukunta waad ka badsan kartaa hal xabo. meesha aniga hal xabo ka isticmaalayo 2 xabo waad ka dhigan kartaa. sidoo kale waxaan kaloo ku darayaa saliid saytuun ama olive sidii aad u taqaanid ayaan ku darayaa. 2 qaando saliid saytuun ah ayaan hadda ku daray. meesha aniga saliid saytuun ka isticmaalayo in saliid aad jeceshahay ayaad ku bedelan kartaa. alaabtii hadda markaan isku soo dardarsanay waan isku qasayaa oo si fiican ayaan hadda isku dhexgelinayaa. alaabta inaba caadi ma ahan. muddo yar oo kooban hadda isticmaashid
timaha inay dhaqsi kugu baxayaan oo kugu badan doonaan insha Allah, oo weliba hadda dhabarka ka degan doonaan. waa adiga haddii aad alaabtan joogtaysid oo aad si toos ah aad u marsatid. alaabtii hadda markaan isku soo qasay oo aan si fiican iskugu soo qasay, sidaas ayay inoogu soo baxday maasha Allah. nafaqadeeni fududeed oo timaha dhaqsida bixinaysay, timaha nafaqaynaysay, sidaas ayay diyaar inoogu tahay. haatan oo kaliya waxay u baahan tahay in jag la isku siiyo oo la isticmaalo. marka sidee u isticmaalaysaa? waxaad sameynaysaa marka hore nafaqada diyaarsanaysaa, kadibna timaha ayaad kala baraysaa, waad marsanaysaa nafaqadan qayba mar ayaad marinaysaa. timaha salka, lafta, meeshay timaha kasoo baxaan ayaad uga bilaabaysaa, kadibna timahoo dhan ayaa wada marsanaysaa. timahaaga waad kuusanaysaa, bacda madaxa la gashto ayaad soo qaadanaysaa, waad gelinaysaa. 1 saac ayaad nafaqadan madaxa ku haynaysaa oo aad ku joogaysaa oo aad ku hurinaysaa. markii aad 1 saac aad ku joogtid kadib waad iska dhaqaysaa. markii hore aad isticmaalaysa dee timahaaga nadiif ku ahaayeen, condition ama nafaqo iskaga meer oo iskaga raaci nafaqadan. haddii laakiin markii hore aad isticmaalaysa timahaaga wasaq ahaayeen oo kale, shaambo waad iskaga meeri kartaa. isbuuc kasto 1 maalin oo kaliya haddii aad ka isticmaashid muddo 2 bilood ah, aad si toos ah u wadid, hadda 1 week kasto 1 maalin oo kaliya haddii aad ka marsatid, hubaal inaad timahaaga isbedel degdeg ah aad ka dareemi doontid insha Allah. timahaaga haddaad aragtidba marba inaysa baxaynin, nafaqa la-aan hayso, timaha nafaqee. damoor aad timahaaga aad nafaqaysid waa damoor ay kuu baxayaan. damoor aad timahaaga ka shaqaysid oo aad shanlaysid waa damoor ay kuu baxayaan. laakiin haddaad timihii kaliya isku xirito oo aadan nafaqaynin oo hal mar le aad saliid aad marisid, waxaa waa jugjug meeshaada joog waaye. alaabtan markaad timaha aad ka dhaqdid, saliid fiican ku shub, kadibna timaha duuduubo, kadibna waxaa waa isku xiro maasha Allah. hadda intaas 2 bil oo kaliya aad si toos ah u wadid oo alaabtaana nafaqadan aad timaha aad u joogtaysid oo aad ku wadid, hubaal inay timahaaga dhabarka ka degan doonaan insha Allah, oo ina kuu bixi doonaan. marka hadda alaabtan ila soo tijaabiya oo igala faa'iideysta nafaqadan cajiibka oo timaha nafaqaynayso, timaha bixinayso, ragaaska, qaleylka, googa, adayga, waxaasoo dhan hadda timaha way ka joojinaysaa, timahana way israacinaysaa. nafaqadan sidoo kale timaha halweyn ka dhigaysaa oo bixinaysaa timo madow oo qurux badan maasha Allah. haddii aad jeceshahay inaad yeelatid nafaqadan, hadda ha u daymo la-aan insha Allah, isla ogow. hadda muuqaalkeeni maanta intaas ayaan kusoo afmeerayaa. waa inoo kulanti dambe oo xiiso leh, iyo anigoo nii sidoo video kale cusub walaalahayga. videogaana sii share gareeya si ay walaalo badan uga faa'iideystaan. janaalka haddii aad ku cusubtaan soo dhawow, minankaaga waa janaalka, inoo subscribe garee, inoo like garee. haddii aad hore noola joogtana waad ku mahadsan tahay mar walbo sida quruxda badan ay noola joogtid.